Ma ogtahay in xogtaada dhanba lala socdo adiga oo jooga gurigaaga? Mise ogtahay in wax halaaliya waxaad ku hadasho muuqaalkaaga dhan iyo codkaaga dhanba la hayo? Waxaa kordhaya walaaca laga qabo shaashada iyo qalabka ku xidhan telefishinka la dhigto guryaha iyo xafiisyada shaqada. Walaacaas waxa uu la xiriiraa dareenka ah in dhalada tv-ga casriga ah ee guriga ku taala ay dhageysan karto islamarkaasna duubi karto wadahadalkaaga iyo muuqaalkaaga. Shirkadda caanka ah ee sameysa telefishinada ee la yiraahdo Samsung ayaa hore uga digtay macaamiisheeda inay arrimaha xasaasiga ka hadlaan marka ay hor fadhiyaan dhalada. Shirkadda ayaa sheegtay digniintu inay khusayso dadka ka hadla arrimaha xasaasiga markay hor fadhiyaan dhalada ama ay daawanayaan tv-ga. Shirkaddu sidoo kale waxay sheegtay in macaamiisheedu ay og yihiin arrinkaas. Ogaanshahaasna waxay ku sheegtay in qofku marka uu iibsanayo tv uu akhriyo macluumaadka tv-ga ku jira, taas oo aanay Soomaalidu ama dadkeenu badanaaba aanay u fiirsan ee ay gataan tv-yada. Dadka u dooda dhowrista xogta gaarka ah ee dadka ayaa ku eedeeyay shirkadda inay ficil ahaan u dhaqangelisay tilmaamaha buugga sheeko bareleyda ahaa ee uu qoray Giorgio 74 sano ka hor. Buuggaas oo ka sheekeynayay oo saadaalinayay sida ay dunidu u noqon doonto goob wada maqal iyo muuqaal duubis ah oo ay ka bixi doonaan xogihii gaarka ahaa ee shakhsiyanka ahaa oo wada basaasiin ay dadku wada noqon doonaan, isla qof kastana xogtiisa oo dhammaystiran la haysan doono. Taariikhduna noqon doonto mid qof waliba wuxuu doonayo qoro, wuxuu doonayana duubo, adduunku wada noqon doono foodo. Siyaasadda duubidda codadka macaamiisha ayaa sharaxaysa in tv-gu uu dhageysan karo codadka dhammaan dadka qolka ku wada jira haddii ereyada lagu hadlayo ay yihiin kuwo xasaasiya iyo haddii kaleba. Macluumaadka ayaa ka mid noqon doona xogta la qabtay islamarkaana lala wadaagay gacan saddexaad, ayay tiri shirkadda Samsung. Mark Sherry oo ah qareenka shirkadda Frontier Foundation oo u ololeysa arrimaha xuquuqda dijitaalka ayaa u sheegtay wargeyska Daily Mail in kooxda saddexaad ay u badan tahay in ay tahay shirkadaha bixiya adeegyada codadka u bedela qoraalada islamarkaana loo adeegsan karo codadkaasi siyaabo kala duwan. Iyada oo ka jawaabaysa wararka baahsan ee ka dhanka ah siyaasadda duubidda codadka, Samsung waxay soo saartay bayaan ay ku cadeyneyso sida codadka tv-yada duubaan u shaqeyso. Waxay ku nuuxnuuxsatay in qaabka aqoonsiga codka lagu hirgelin karo iyada oo la isticmaalayo kantaroolka fog ee tv-ga. Samsung ayaa tiri haddii macmiilku ogolaado in uu isticmaalo astaanta aqoonsiga codka, xogta codka waxaa la siiyaa qolo saddexaad. Waxay intaa ku dartay in Samsung aanay kaydsan codadka, aanay gacan saddexaadna ka iibin. Kooxda saddexaad ee gacanta ku haysa islamarkaana turjunta codadka ayaa lagu sheegay inay tahay shirkad lagu magacaabo Nuance oo ku takhasustay aqoonsiga codka. Samsung ayaa sidaasi ku xaqiijisay. Haddaba su-aashu waxa weeye, sidee ayaad isaga ilaalin kartaa in tv-yada casriga ee loo yaqaano smartku ay ku jaajuusaan? Inkasta oo siyaasadaha la xidhiidha ururinta iyo kaydinta xogta macmiilku ay ku kala duwan yihiin shirkadaha soo saara agabka casriga ah, haddana waxaa jira dhowr arrimood oo kuu sahli kara inaad iska ilaaliso xogtaaduna ay noqoto mid ammaan ah. Akhri marka hore macluumaadka shirkadda intaanad iibsan tv-ga. Telefishinkaaga iyo guud ahaan agabka casriga ah ayaa ururin karo macluumaadkaaga shakhsiga ah haddii aad u fasaxdo marka hore. Taas oo macnaheedu yahay marka hore aad wax iibsanayso inaad iska hubiso shirkaddan inay la socdo tv-gan qalab duubayo codadkaaga iyo in kale.